waxaan wax ka tilmaamaynaa marka kan rukun ka mid ah arkaantaasi camaliga ah ala wahiya salaa kama hadlayno salaada iyo waajibkeeda salaada iyo arkaanteeda salaada iyo waxay ku asaxdo salaada iyo muhiimadeeda laakiin waxaan tilmaamaynaa sida ay muhiim ugu tahay bulsho muslima dhisideed oo nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi cahdi aan dowlad islaami jirin oo masaajida cusub oo la dhistay aanay jirin allahuma ilaa masaajidka dee xaramka ee isagaa dhowr boqol 360 sano miyaaleen mooyaane aan masaajid kale joogin waan meel la isugu yimaado kale jirin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada ku waajibiyey tamacnaheedu waxa weeyaan salaadu inay tahay waxa abuura bulshada muslimka ah waxa in badan dadka maanta ay ka fakarayaan xagga gaalaa jirto halkan waxba la isku garaacaya maada nacmal bay dadku isweydiinayaan waxaan leenahay arkaantii islaamka ama dadka muslimiinta dhisaysay baa u baahan inaynu dib u milicsano waxa u baahan inaynu dib u milicsano salaadaas wa asaas bay u tahay baan leenahay takwiin al-umma al-islaamiyya ولذلك يدعو أن أركانت كلا لواجبين با إلهي صلاة واجبية وحين تصدر نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه مركي نفت كسي بحيسي وقدم بيسينا ووحو دردار مي يعني قفكو مركا ودمنا ايو او اقيا هين الدنيا تنكتك ايو او سلاي دادكي وكان حياء دردارا waxa uu dardaarmaa waxa ugu weyn ee uu isleeyay dadka uga siitay nabi muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi wasiyadkiisii ugu dambeeyay bal naftu markay ka sii bixi doonto wasiyadu lahaa as-salaa wa ma malakat aymanukum sida xadiiska abi daawud iyo qeyrkiiba sheegayaan sheekh albani saxiix ku tilmaamay as-salaa وهو النبي قدر دارمي وقسي دنبيي صلاة وشيء قاسي منزلة دا إنه وضع نقانون نصوص بدنية حديث آدو ترى بدني كصار ورطي إلا أحد علماء ضاي تلمامان أركان تكالدول كاللغو واجبية ميل بن آدم قاعدة هل كي يقص الرئيسي مركو النبي محمد مريي صلوات الله وسلامه عليه إن لصافر ليلة المعراج haddaynu dib ugu noqonno quraanka makiga waxaynu dareemaynaa inay salaadu ka mid ahayd waxyaabihii tawxiidka la socday waxaynu dareemaynaa inay ka mid ahayd waxyaabihii nebiyadii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo faray sideedaba arkaantan shanta ahi haddaad nusuusta qur-aanka dib ugu noqoto waxay ka mid yihiin diimihii samada ka soo degay waxyaabaha ay wadaagaan intooda badani day xajtay haday soontay haday salaatay haday zakatay kayfiyadkeedu ba kala gadisnaa manzilada ay ka taagantahay waxa kaaga filan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa abul anbiyaa ibraahim alayhi salaam nabi ibraahim oo ilaahay baryaya oo maxay ka baryaya rabbi ij'alni muqima as-salaah wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء نبي إلهي بريا سبحانه وتعالى وقعما كرو تاقيا ووحاو إلهي ويدي سنة يا إتهينو ألا كيالو متسلاد أوغا أهمية دادا وحي تلمامي سايني هداية قارة وباهنتي سلاد أوغي دادو هداية قارة إنه وباهنتي سيدا درادد با أبو الأنبياء انتو إلهي بريا سبحانه وتعالى ayuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu alla ka yeelo mid salaada ooga hadaynu qur-aanka akhrina waxaynu arkaynaa ambiyadii hore nabi ciise leh qaala innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt waawsaanii biالsalaati waالzakaati maa dumtu xaya nabiyullaahi ciisa ولا إلهي با سبحانه وتعالى إدر دارمي أمسا أمري إفري
salaad iyo zako inta aan noolay waxaynu quraanka ka dareemaynaa iyadoo nabi muuse markii tawxiidka loo dhibay salaadana loo dhibay ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت الماما يصاعات كي كواد وحيبا نبي موسى كسودقو وحلقوا إذا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وحين الدريمي كرنا النبي هارون صدوك له أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وحين دريم أن يدعو إلهي سبحانه وتعالى ونغور رمي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والله تلماما يا ولا تمدن عينيك إلى ما مطعنا إلهي ووت الماما يا وحم بدبد كنا الدنيا زهرة الحياة الدنيا إن أنا وحبايسكم مشغولين وإنده وتاقين ما حي سمي بالغيري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذا القرآن كما كان نوفر سنة مكي قرآن كان أخري وقرآن مكية قرآن كاسي مكي أمر كان نوفر سنة إلهي سبحانه وتعالى يدو مكلا شوغو أي مسلمين تصلاة والرمي لو الرمي أنبيادي هري الصلاة هل كي كتاقنتي لو الرمي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يوحي على فري بل القرآن كإلهي وحكوت الماما يا لقمان الحكيم مد حكمة لسيي واللقمان لا يدعوه لقمان حكمة دي وقوة ينيدا ويلمه سكولة دردار مي وحاكم دهيد يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إنها سيودان مركا إنو اسكو ضره وحين لأن الصلاة وحا الله يسفري إنه النقطة أسوش كوان